السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalkiina xuseen afgoyaani janaalka xuseen afgoyaani aad daawanaysaa. horta janaalka haddaa ku cusub tahay waxaa waaye subscribe-ka taawa insha allah, gambaleelkana furo waad mahadsan tahay. haddaa hore u joogtayna kusoo dhawow video kale. muddo bil ku dhawaada waxaa video ma soo dhigin, waa la iswaayey arrimo jira awgooda. binaad waxaa waaye hore waxaa loo yiri binaadna iswaayey arrinaa kala geysay. isweeyitaankeenana waxaan aaminsanahay inay arrinna kala geysay calaashan waa mashquulsanaa. marka laakiin maanta wixii ka dambeeyay insha allah videoyadeena kuwii wacyigelinta ahaa, kuwii barashada luqadda Jarmalka way noo socon doonaan insha allah. maanta waxaan idin hayaa marka waxaan ka hadli rabaa mowduuc bil ka hor aan rabay inaan ka hadli rabaa insha allah. mowduucaasna wax kale ma ahan, wuxuu quseeyaa walaalaheena ama dumarkeena Soomaaliyeed ee isticmaala barnaamijkan ama social media loo yaqaano TikTok-gaas waxyaalaha ka socdo oo qofkii TikTok-tii inuu iska soo duubo oo haddana kuwa qaar ayagaa soo qaataan ama qof kale uu soo qaado waxaa la keenaa YouTube-ka. marka saawada ogtihiin TikTok-ka gabdhahena badanaa waxay ku sameeyaan waxyaalo anshax daraa, waxyaalo aan asluubtooda fiicneen, waxyaalo aan qofka muslimka ah ama gabadha Soomaaliyeed aan u cuntamin. gabdhahena Soomaaliyeed waa gabdho qaaliya, wallahi ana been idin sheegin waana ku faanaa. gabdhaheena waa gabdho qaaliya aan la mid ahayn gabdhaha caalamka dhinaca dhaqanka marka loo fiiriyo, dhinaca quruxda, because anoo iga ahayn waa dadkaagii faali. because aniga hadda muddo 5 sano ah aan qurbaa joogaa, ومع ذلك waa arkaa qurbaana hadda wuxuu noqday caalam, waayo wadan walba wuu joogaa. hadda qof qaaradda Mareykanka ka imaado waa kiili, qof Afrika ka imaado waa helaysaa, qof Aasiya ka imaado waa helay, qof Australian waa helaysaa, marka qof European waa bala joogtaaba. marka gabdhaheena marka aad fiirisid waa gabdhaha ugu fiican, ilaa ma raxim rabbi. dad qaar qallaba wax yar xun oo xumaan zaidkaasna ma qabaane ayagana shidaana ka tambadiyey oo waxay ku jiraan beerta sida loo yaqaano. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo gabdhaha isku qaabiya cooradooda soo bandhiga marka la joogo TikTok-ga kadibna loo soo qaado YouTube. gabadha muslimada oo walaashiida ah oo Soomaalida ah ma aqaan wax ku qasbay inay jirkeeda TikTok-ga soo dhigto, because qof walba marka aragtid wax qori lagu haayo ma jiro, wax qasab loogu sameeynayo ma ahan. gabadhan iyada iskeeda u sameysanaysa badanaan waxay joogaan qurbaha. inta hadda aniga aan arkay waxay u badan inta qurbaha joogto. inteena Soomaaliya ka soo gasho way iska fiican yihiin, Ilaaha barakeeyo, Ilaahan ha asturo. marka walaasheeda qurbaha joogto macnaha ma fahmin ilaa hadda isku qaabinaysid. haddaa ku daysanaysid dadkan aan wadan kala joogno, isku dhaqan ma tihiin, isku diin ma tihiin. adaa ka duwan, waadna ka fiican tahay. waay aa iskala bardhigay marka, ama micnaha maahmaadii meel ilaga la-ya haddaa imaad ilaa iska tiraa maa wadaa. ma ahan taas, diin kuma noqoto, taasna dhaqan Soomaaliyeed kuma noqoto. gabadha Soomaaliyeed waa gabar qaaliya, waa gabar lagu faano. hadda caalamka soo fiiray gabadha Soomaaliyeed gabdhaheenii hore meeqa laga bixin jiro, 100 halaadood geela laga bixin jiray, hal nafay u dhigantay. caalamka ma jirtaa gabar laga bixiyay intaas. hadda gabadheena Soomaaliyeed markii hadda la guursanayo waa aragtay qaabka loo ixtiraamayo, loo maamuusa. gaalada ma loo maamuusa? No, ma jirto. anagaa ka sharaf badan, anagaana ka qiimo badan. waay aa ugu daysanay marka
sabab adiga ugu daysay ma ii sheegi kartaa? Okay, gabadha Soomaaliyeed waa gabar u dhigmin gabdhahan kale, way ka qaalisan tahay. Marka adiga tiktokan xun, ma aqaan tiktok ma lacagaa lagu helaa, I don't know, ma aqaano aniga melihi oo tiktok, laakiin waxaan ku arkaa youtube-ka. Okay, marka maraan isku dayay inaan sameysto, waa samaystay, kadibna badanaa ma isticmaalo oo wax aniga aan leeyahay ma dhigo. Marka adiga waxaa ka faa'iidaya marka ma ii sheegi kartaa? Ma fahmin. Okay, marka ilaah ka cabso, ilaahaygii Soomaali kaa dhigay, islaam kaa dhigay oo ummad islaamkaa soo dhex saaray, ka cabso. Okay, waayo waxyaalaha aad samaynaysa ma ahan. Gabadha muslimadda ah jirkeeda inta ilaahay uu asturay hadday soo bandhigto, intaasi dab naar dabaa laga saaraa la yidhi, dab waa laga guwa. Okay, adiga marka tusaalaysa marka dabka maanta anaga aan haysano, inta aad soo bandhigta haddii lagaa saaro, waxaa kaa harayo waxba. Okay, wax kaa harayo ma jirto. Waayo marka kii kan hadda anaga aan isticmaalnane wuxuu u dhigmaa la yidhi, lianna kan naarta laga soo bixiyey intaasoo kun oo webiyaa lasoo dhexgeliyaa laga soo bixiyey, oo hadda maanta kuleelkiisan kasir gacantaa kuma hayn kartid. Okay, kan haddii lagugu guwaadan hayn karin, kii aakhira ka waran bal. Okay, nothing, waxba, because wuu ka kuleel badan yahay. qul naaru jahannama ashaddu xarran. Okay, naarta jahannama ka kuleel badan tan adduunka. waayo marka isku bandhigaysaa? jirkaaga asturo. Okay, jirkaaga asturo. jirkaaga anaga luul wuu nooga qaali badan yahay haddaan nahay dadka Soomaaliyeed. Okay, mana aqaanaba waay aa isku bandhigaysid, ma aqaano. hadda anaga hadda Yurubtan aan joogno, waxaa la lahaa qofa maalin Soomaaliya u tagaa la yidhi, markaasaa la lahay niyo Yurub noo sabir. markaasuu Yurub waa 2 jeer bes. Yurub waa 2 xili ayada dhanba. waa xiliga winterka oo geedahooda qaaban, waa 2 qaabanaash iyada dhanba. mar geedaha qaaban oo dhirta way qaaban tahay, caleemo ma lahan, waayo caleemaha way tuurtaa xiliga samarka. waa geed qalalan, wax meesha taagan. biqudratil jabbaar haddana xiliga samarkane adoo iyadoo biyo lagu shubin, wax lagu saaran, asaa iska soo baxay macnaha caleemihii. marka wuxuu yidhi xili waxaa qaaban dhirtooda, xilina waxaa qaaban dumarkooda. hadda Yurubtan aan joogno xiliga samarka banaanka ma aadi kartid, waayo naagii dhan way wada qaawan yihiin, waxay ku ersheegtaan kuleel. Okay, marka annaga marka dad muslimaan nahay, ilaahay wuxuu naga soo saaray ama uu na siiyey dhul maanta kuleelna ahayn, qabowna ahayn, oo intaas u dhexeeyo. Okay, marka I don't know, ma aqaano sababta adiga isku qaabinaysa, ilaa hadda ma aqaano. Okay, midda kale nimanka Soomaaliyeed, nimanka qaar ama wiilasha qaar oo commentiga ama qaybtan commentiga calaasha meesha faalada kuugu soo qoraya, yaa waa shidan tahay, yes juu beentiisu ah. Okay, ninka ku dhahay waa shidan tahay, walaashiisa ay soo qaabis waa shidan tahay, hadhow Allah ka saaro waa kaas, ama loo fasiyo. No, ma dhacayso. waayo adiga inaa is qaabisid wuu ku ogol yahay, laakiin walaashiis uma ogola. waayo marka adiga walaalkaaga aaw, walaalka adiga kuu ku dhashay aaway, qof ku danqadaa la rabaa de. wiilashadna waxaan u sheegay calaashaan gabadhan aad dhehaysid, okay waay wat waa qurux badan yahay, ma ahan, ka jooji, ilaah ka cabso. gabadha uu nasteexee oo dheh walaalay ka joog. marka xishoodka intuu naga aado, subxaan allah. aan xishoono, korkaaga asturo, biliis korkaaga asturo. korkaana asturo, korkaaga waa inaad kaga cabsataa naar. Okay, dumarka waxaa la lahaa waxaa u fidnaan karta wejiga iyo gacmaha calaacash, intaas wixii ka har waa cawro, waa inaad daboolataa. hadda intii iska dhaafee subxaan allah, subxaan allah, meelo badanaa fiidan. marka yaan warka idinku badinin. fiidiyoogan waxaan ugu talagalay inaan la hadlo gabadha walaashiida ah. Okay, because
ilaah ka cabso wiilashana waxaan ugu digaa calaashan inay dhahaan gabdhaha hor u soco walaalo adiga walaashaa ma ogolid inay isqaawisay soo gasho marka fakeyf aa ugu ogolaanaysaa qof walaashaada oo muslimad ah oo aa line u saaraysaa badana waxaan ku arkaa hadda facebooka gabadhaa sawirkeeda soo saaraysa oo wax ka qaldan ninaa hoos wuxuu ugu soo qoraa oh waa fiicantahay isoo qabo shuu haada xumaanta ada lagu soo qabanaya maxay tahay okay laakiin mar walba aan qaladka waxaan saaraa gabdhaha calaashaan ilaah ka cabso wixii xumaan ah ka joog ha ka yeelin hadda maalmo waxaa video ku jiray oo social media ma arkin ay gabar oo isqaabisay oo qaabanaanteeda nin usoo dartay ninkiina kadibna social media geliyay qaladka ninka malan adaa iskala walaashay okay why ani isku qaabinaysaa why aan nin ugu ogolaanaysaa inaad jirkaaga cooradaada aad tustid why sabab I don't know ma aqaanin laxdab sababtaasi sabab aa u samaynaysaa ninkan hadduu ku dhaho waxaa itus waa idab daran tahay maxaa naga dhexeeyaan haddaa wixiigana arabtid jidka la maraayo soo mar isoo doono u tag hooyo u tag aabo okay waalidka u tag kadibna jidka saxda aan marno kadib arag wixiiga xalaaluu kuu yahay laakiin asoo xalaal kuu ahaan in soo fariiso yaa itus saan yeel shuu ceeb okay waxaas ceeb xitaa ninka hadduu ku qabo culamo qaar because way baneynayaan laakiin hadduusan ku qabin wax meesha lagu banay meesha ma yaalo okay marka yaan warka idinku badin marka qalad walbo oo gabar muslimad ah ceebteeda la faafiyo ceebtaas iyada iskale ninka qaladka ma lahan okay ninka asii qaladku wuxuu ku leeyahay wuu buubuuniyey ninka ku dhiirgelinaya ku dhahayn isqaawi waa beentiis kirdhe soqojanka okay waa beentiis ha ka yeelin okay mar walbo adiga waxaa samaysaa wixii ilaahay iyo rasuulka yaa ilaaha ka raaligelinaysa rasuulkana aa ka raacaysid wax kale ma jiro laanna rasuulka anaga wuxuu noo yahay qudwo adiga hadda gadaal u noqo bal saxaabad ma maqashan naag soo qaabisay naagaan mushrikaad kala mar naag oo muslimad oo saxaabiyad ah oo isqaabisay lama maqasho waa may marka waay adiga u sameynay okay marka waxaas qalad waaye halaga joogo insha Allah marka waxaan idin leeyahay khayr iyo caafimaad maalinta idin wacnaato. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.